السلام عليكم. kusoo dhawaada kulliyadda Star College. magacaygu waa Macallin Mustafa. maanta halkan waxaan ku duubaynaa casharkeennii saddexaad ee barashada kombiyuutarka. waxaan ku jirnaa buuggeennii koowaad ee barashada kombiyuutarka, kaasoo loo yaqaano Windowska. Windowskana waxaa ka hab jiray oo sidaynu naqaanay isticmaalka guud ee kombiyuutarka. Page-ka aan maanta maraynaa waa page-ka 10aad. casharkuna waa casharkeennii saddexaad. maanta waxaan xaggan ku baranaynaa ku duubaynaa sida loo soo muujiyo faylasha iyo foldarrada qarsoon. sida loo soo muujiyo faylasha iyo foldarrada qarsoon inagoo stepskan marayna waxaan doonaynaa inaynu haddii faylal ay naga qarsoon yihiin oo la qariyay inaynu la soo baxno, sidoo kalena inaynu qarin karno. haddaba stepka koowaad waxaan tegaynaa meesha loo yaqaano File Explorer. markaan halka ka doorano waxaan kasii dooran doonaa meesha loo yaqaano Recent Files. waxaan kasii dooranaa Optionska. waxaan tegi doonaa halka Optionska. markaan doorano kana inoo soo bixi doonaa. kadib waxaan dooran doonaa stepka afraad, View-gaasaan dooran doonaa. kadib halkaa ayaan ka dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay Show Hiding Files, Folders and Drivers. Apply baan odhan doonaa, okay baan odhan doonaa. habkan waa habka aynu u eegayno haddii faylal iyo foldarro ay naga qarsoon yihiin. kabacdi waxaan isku dayi doonaa inaan qarino. haddaba halkan igala socdo. si aan u eegno faylasha iyo foldarrada waxaan tegaynaa File. waxaan tegaynaa halka ay ku taalla Quick Access-ka. waxaanu sameynaynaa sidii buuggeena ugu taalay right click baan leenahay. waxaan ka dooraynaa Options. intana markay noo soo baxdo waxaan ka dooranaynaa View. deedna halkan maxaa noogu yaalla Show Hiding Files and Folders. sida awgeed kan haddii uu kuu dooran yahay wax fayla iyo wax foldara iyo wax driver oo iniga kaa qarsoon ma jiro. laakiin si aad u qariso Don't Show baad ku dhufanaysaa. kabacdi Apply baad leedahay, okay baad leedahay. hadda waxyaabo badan baa xagga ka baxay. sababta uga baxayna waa maxay? waxaa kuu doornayn hiding ayaan kuu doornayn. waxaa kuu doornaa waxyaabaha la qariyay. sidaasaa uu kuu tusay waxyaabaha la qariyay. haddaynu habayno waxyaabaha halkan saaran aynu sort nidhaahno, aynu tusaale ahaan faylka marwa ay ku qoran tahay aynu dul istaagno, kamana doonina aynu qarino. sida aan hore u sheegayna waxaa file la yidhaahdaa wax kastoo aynu wax ku qorno waa file. muuqaalada, videoha, codka, waxyaabaha noocaas oo dhan waxay noqonayaan faylasha ay hoos tegayaan. kuwan kalena waa folder, waa software. kanna waa folder, kuwaasna waa khaanado, waa folderro. marka wax kasta oo kombiyuutarkaaga ku jira saddexdaa ma qaybsamayaan. inuu noqdo file oo ah kuwa wax lagu qorayo, ama kuwa aynu muuqaaladina ama sawiradina waxyaabaha noocaasi oo file hoos tegaya, iyo kuwana qasnada ah ama folderro ah, iyo kuwan oo ah software. sida awgeed waxaan doonaynaa kan inaan qarino. right click baan leenahay. waxaan ka dooranaynaa Property. markaan ka doorano waxaan doonaynaa inaan qarino. sida awgeed waxaan leenahay hide baan saaraynaa. kabacdina Apply baan leenahay. isla markaa waa qarsoomi doonaa. saad u jeedo waa qarsoomay. okay baan leeyahay. waxaan doonayaa inaan qariyo mar labaad sawirkan. sidaan kana u qariyo right click baan leeyahay. kabacdi waxaan ka dooranayaa Property. kabacdi waxaan ka dooranayaa hide. markaan ka doorto qarsoomi maayo ilaa iyo aan idhaahdo Apply markaan ku dhufto waa qarsoomaya. kabacdina okay baan leeyahay. sidaas waa sida loo qarinayo faylashaada iyo foldarradaada. folder imika waxaan isku day inaan qarino. folderkaan soo qaadaynaa. right click baan leenahay. Property baan leenahay. kabacdi waxaan ka dooranaynaa hide baan ka dooranaynaa. Apply baan leenahay. halka su-aal muhiim ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay qarinta ama isbedelka aad ku sameynayso ma ku apply karaynaa folderkan iyo foldarrada kusii dhex jira iyo faylasha kusii dhex jira. yacni wax kasta oo faylka ku dhex jira ma doonaysa inaan qarino. haa baan leenahay. okay
kabacdi waa qarsoon sabujeedo. Okay, habkaas waa habka lagu qariyo faylasha. haddii aad doonayso inaad soo muujiso in dib aad u aragto waxyaabihii la qariyay inaad dib u eegto ama faylka aad qarsatay inaad la soo baxdo haddii aad doonayso, halkan markuu noqonaynaa file explorer waxaynu imanaynaa quick access kan dul istaagaynaa, right click baan leenahay, options ka dooranayna. kabacdi markaan options ka doorano waxaanu tegaynaa view baan tegaynaa, then halkan don't show hidden files baa ku taala, waxay tusin faylasha la qariyay, folderada la qariyay iyo drive-ka la qariyay. laakiin markaasaan u aragno show baan leenahay, apply baan leenahay, okay baan leenahay. kabacdi waan xidhaynaa aynu aragno waa kan dhammaan wixii aan qarinay. UK waa qarsoonaa, xog waa qarsoonaa, deyn waa qarsoonayd, marwo inagaaba qarinay, folderka waa inaga qarsoonaa, sidaasay usoo baxayaan. kaasna waa sida loo qariyo ama loo soo celiyo faylasha. tusaale, haddii ay dhacdo inaad file explorer aad haysid, file explorer oo kana haddii aad haysid maxaad samaynaysaa? waxaad tegaysaa qaybta search-ga loo yaqaano search, kabacdi waxaad ku qoraysaa folder options, folder options ama folder explorer options waa kaa soo baxay, file explorer options waa kaa soo baxay, cafwan kaasaan ku dhufanaynaa. kabacdi daaqadii yarayd aynu wax ka qarinaynay oo taa inoo soo baxa. habkaana waad isticmaali kartaa haddii aad weydo kanaad ka weydo. habkaana waad samayn kartaa. hab saddexaad baad samayn kartaa oo isagana loo yaqaano control panelka la marayo. control panelku waa kan, kaasaad furaysa. haddii uuna halkan ku oolin control panelku, halkanaad ku qori kartaa CON markaan qoro waa u soo baxaya. control panel waa kan, kaas markuu soo baxo ayaa waxaan tegaynaa appearance, waa in xaggaasi ku ahaataa grouped, waa in ku ahaataa category, waa in ku ahaataa. kabacdi meesha ay ku taalo appearance and personalize ayaad ku dhufanaysaa. kabacdi file explorer options waa kan raadinaynay, kaasaad ku dhufanay, waa ku soo baxaya qaybtii aynu doonaynay inaynu ka qarino oo view ah. ayaynu tegaynaa show hidden files. haddii aad doonayso in la qariyo wixii qarsoonayd qarisay in la qariyo oo la tusin, haddii aad doonaysana don't show-ga ayaad ka dooranay. markaan don't show-ga nidhaahno way dhammaan kuwana oo dhan ay isqariyaan, dhammaantood kuwana waa inay isqariyaan. adoo arkaya ayaan leeyahay apply, waa la qariyaa, waa la aragta waa la qariyay. sidaasaad ku qarin kartaa. saddexdaa tallaabo kii kula fududooda isticmaal, ugu yaraan waa inaad 2 tallaabo aad haysaa oo xifdisanaata. halkaa waxaan ku ogaanay sida loo soo muujiyo faylasha iyo folderada adigoo isticmaalaya habkan folder optionska. halkaan waxaan ku aragnay sida faylka loo muujiyo waxyaabaha qarsoon loo soo saaro ama waxyaabaha qarsoon loo qariyo la yiraahdo. waxay tusin saddexdan hab, cafwan labada hab. halkaan ka bilaabmaya process 2 ka bilaabmaya ama step 2. faylka aad doonayso inaad qariso ayaad dul istaagaysaa marka koowaad waad raadinaysaa, kabacdi right click baad ku dhufanaysay, waxaan ka dooranay property, kabacdi waxaan kusii dhufanaynay apply. okay, intaas waxaa inoogu dhan casharkeenii saddexaad ee barashada cilmiga kombiyuutarka. intaynu casharkan la mida aan ku kulmi doono, sidaas iyo wassalaamu calaykum.